السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعنا وناكسن داود على كلام مقال كتيفي واحد كسر دواتان وركي وجودن بيجي الدجال كسعودة هدل كاسي توبيا قضبة صاحب يلا داون دوتان وحقيب كنقونية هي دقرمة مدوبوقة برسن عنتدا WFB أيها شاكتي إن يكرر مادين كيد كيراشيك جرجار كدق أها وكويا لي قبل كوقوي توبيا تجري وربحنا أيان وذا كجاه نادا وديال سيدو كلام حردي سو جود بين دونا واد برامج كنا كودا وان دونتان waxaan weynay waqti aan ku aasno meydadka haatan si dhurwa ayaaba dhamaystay mid kamid ah dadka deegaanka Tigray oo arin muruga la ka sheekeynaya ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaasi aad buu nagu soo kordha intaanu barnaamijkeena ku guda jirno ayaad saaxiibayaal daawan doontaa balse haddii aad nagu cusub tahay oo marka ay kugu horeysay inaad daawanayso subscribe janaka inoo saar share garay muuqaalka oo laag saar sidoo kalena gambaleelka furosiya mar walba ku soo gaaraan xogaha iyo macluumaadka aynu halkan soo gelino waadna ku mahadsan tahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan hay'adda cunnada adduunka ee WFP ayaa waxa ay sheegtay in ay ka dhamaatay kaydkii raashinka gargaarka ahaa ee u yaalay gobolka waqooyiga Itoobiya ku yaala ee Tigray dagaalada soo cusboonaaday ee u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa Tigrayga iyo sidoo kale xiritaanka wadooyinka muhiimka ah ee gaadiidka ayaa si weyn u carqaladeeyay safrinta gargaarka bani'aadanimo qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 5 milyan oo qof ay aad markaasi ugu baahan yihiin gargaar bani'aadanimo oo degdeg ah gargaarkii la gaarsiin lahaa Tigrayga ayaa ahaa mid markaasi aad u dhib badan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay inkasta oo baahi degdeg ah ay ka jirtay deegaanadaasi waxa ay markaasi daba socotaa dagaal 8 bilood ee la soo dhaafay socday oo dhiig badan markaasi uu ku daatay oo u dhaxeeyay ciidanka Itoobiya iyo jabhadda xoreynta dadka Tigrayga ee TPLF si ay u qabsadaan gobolka Tigray hadda dagaalku wuxuu markaasi ku sii fiday gobolka Canfarta ee diriska la ah ee ka xiga dhinaca bariga isagoo halis geliyay mid kamid ah marinada muhiimka ah ee soo gala Tigrayga 10,000 ayaa ku barakacay qalalaasi ugu dambeeyay taas oo ka dhigaysa baahida loo qabo taageero bani'aadanimo oo degdeg ah waxaa jira qaybo kamid ah Tigrayga oo ay suurtagal tahay inay markaasi wax gaarsiiyo dadka u baahan gargaar ahaan meelaha markaasi hadda xasilooni markaasi oo ay ka taliyaan TPLF qaramada midoobay waxa ay ku qiyaastay in guud ahaan 75% dadka xaaladoodu cakiran tahay ee Tigray ay hadda markaasi gaari karaan bishii May tiradaasi waxay markaasi ahayd 30% oo kaliya laakiin qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digaysa in kaydku si xawli ah markaasi u baaba'ayo xitaa meelahaasi iyada oo marin u helida aad markaasi uga fog tahay kolonyadii gargaarka ee ugu dambeysay ee si guula markaasi ku gaaray magaalo madaxda gobolka ee Makalla waxay ahayd 12 bishii July ee sanadkan maalmo kadib markii ay soo mareen jidgooyooyin ayay sheegtay qaramada midoobay kani wuxuu ahaa safarka kaliya ee gaaray Tigray bishii July oo dhan 5 July dawladdu waxay markaasi ku dhawaaqday in ay ogolaan doonto duulimaadyada bani'aadanimo ee gaaraya gobolkaasi Tigray si kastaba ahaatee waxay dejisay kontaroolo adag oo ay markaasi ku jirto shuruud ah in dhammaan duulimaadyadu ay marka hore soo deegaan caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa si loo baaro ilaa iyo hadda duulimaadyadan waxaa ku jiray tiro kooban oo shaqaale samafal ah laakiin kuma jiraan gargaar cunto jidadka bariga ayaa sidoo kale aad loo xadiday dhanka koonfureed ciidamada taageersan dawladda ee gobolka Amxaarada ka socda ayaa ka hortagaya in markaasi sahaydu ay soo marto kolonyo 29 baabuur ah oo siday gargaar WFP ayaa markaasi lagu qasbay in ay dib u laabtaan 29 Juun sida ay sheegtay qaramada midoobay waxa kale oo aan suurtagal ahayn in gargaar markaasi lagu keeno wado oo ka timaada Suudaan oo la geliyo galbeedka Tigray oo ah meel markaasi ay gacanta ku hayaan kooxaha taageersan dawladda Itoobiya ilaa markaasi dhawaan dariiqa kaliya ee dhulka ee la marin karo ayaa ahaa bariga Tigray iyada oo kolonyo ay ka soo galeen gobolka Canfarta ee Itoobiya si kastaba ha ahaatee iyadoo dagaaladii ugu dambeeyay ee ku soo qulqulayeen Canfarta wadadani waxa markaasi hadda ay halis bay ku jirtaa isla markaana ma jiraan wax dadaal ah oo halkaasi ka iman kara WFP waxay hakisay dhaqdhaqaaqii markaasi kolonyo ka timid Canfarta oo ku sii jeeday Tigray kadib markii kolonyo 10 baabuur ah la weeraray 18 Luulyo ma cadda cidda markaasi geysatay weerarkaasi laakiin dadku waxay indheeya ayaa soo jeedinaya inay mas'uul ka yihiin maleeshiyada dawladda taageersan oo markaasi aan doonayn in ay dagaalka markaasi ka joojiyaan gobolkaasi Tigray isla markaana gaajada dadka Tigray u adeegsanaya qalab dagaal oo kale
Bilin Sium oo ah markaasi afayeenka ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxa uu sheegay in ay kuwa markaasi aan loo baahnayn in loo tixgeliyo xanibaadyo maadaama ay dawladdu ku qasban tahay in ay markaasi isku mid ama si isku mid ah u sugto amniga. ayaa timid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Ridwan Hussein uu ku eedeeyay ururo samafal ah oo aan markaasi la cayimin in ay ka shaqeynayaan sidii ay u hubayn lahaayeen kooxda TPLF isagoo ku andacoonaya in dawladdu ay qabatay iyaga oo hub iyo qalab markaasi siinaya jabhadaha. dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa waxa ay sheegaysaa in bayaanada dadweynaha ee tuhunka markaasi geliya howlaha hay'adaha markaasi gargaarka ay halis ku yihiin ammaanka shaqaalaheeda iyo sidoo kale bukaanadooda. qaramada midoobay ayaa sheegtay in 12 kamid ah shaqaalaha gargaarka lagu dilay gobolka tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii November ee sanadkii 2020. dhinaca kalena ruwaayo ayaa cunaya meydadka dadka ku dhintay tuulooyinka degmooyinka iyo sidoo kale magaalooyinka lagu garaacay duqeymaha cirka halka rag da' iyo sidoo kale haween da'yar ay hubka qaateen. arrimahaasi waa sheekooyinka naxdinta leh ee ka soo baxaya dagaalka ay ku dhinteen tobanaanka kun ee qof haddii aanay markaasi boqolaal kunba ahaynba kaas oo ka socda gobolka taariikhiga ah ee Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya. gobolkan ayaa go'doomin ku jiray muddo 17 bilood ah mana jirin adeegyada markaasi sida bangiyada telefoonada ama xitaa internet warbaahin gudaha u gashayna ma jirin. magaalada Shire ayaa astaan u ah dhibaatada markaasi bani'aadanimo ee ka taagan gobolka Tigray iyada oo mid kamid ah howlwadeenada gargaarka uu sheegayo in ku dhawaad 600,000 oo qof oo rayid ah ay soo miciin bideen magaaladaasi iyo sidoo kale deegaanada ku xiran kadib markii ay isaga soo carareen deegaanada markaasi uu dagaalku halakeeyay. in ka badan 120,000 oo qof ayaa banaanka ku soo dhacay oo waxa ay markaasi seexdaan geedaha hoostooda iyo duurka ayuu qofkaasi u sheegay BBC-da isaga oo codsaday in aynaan shaacin magaciisa maadaama uu ka cabsi qabo in laga aargoosto. inta badan howlwadeenada gargaarka ayaa toddobaadkii hore isaga soo baxay magaalada Shire kadib markii ciidamada Itoobiya ay si culus markaasi u duqeeyeen. kumanaan qof oo halkaasi ku nool ayaa isaga cararaya Shire xilli ay markaasi soo baxayso cabsi ah in markaasi lagu tacadiyo sida ka dhacday deegaanada kale ee gacanta ku hayntooda la wareegeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea. 4 qof oo goobjoogayaal ah ayaa soo tabiyay in tuulada markaasi Shimbilina bishii September lagu qabtay 46 qof isla halkaasina lagu dilay. tuulooyin kale ayaa markaasi laga helay meydad dhex yaala xoolo iyana markaasi la dilay ayuu hadalkiisa ku daray qofkaasi ka shaqeeya gargaarka. dhurwaaba cunay dhowr meyd waxaana markaasi meydadkaasi lagu garan karaa oo kaliya wixii ka soo haray dharkooda. dadka goobjoogayaasha ah ayaa sheegay in markaasi aanay helin waqti ay ku saasaan meydadka dhurwaayaduna xilligan markaasi ay dhamaystireenba ayuu ku daray. waxa uu sheegay in gabood falladaasi ay banaanka soo dhigeen in ay tahay in inta badan dadka ay waxyeeladu soo gaadhay ay ka tirsan yihiin qowmiyadda yar ee Kunama la yiraahdo taasoo aanan qayb ka ahayn colaada ka socota dalkaasi Itoobiya gaar ahaan waqooyiga dalkaasi colaada ka bilaabatay balse aatan u muuqata mid gebi ahaanba ku sii fidaysa dalkaasi Itoobiya. gudaana daawadayaal warkii aad kala socoteen janalka muuqaalka TV waa naga inta haddii aad markaa kugu horeysayna daawatay subscribe janalka inoo saartay muuqaalka oo la agsaasto karana gamaleelka furasi ama walba ku soo gaaraan xogaha iyo macluumaadka aynu halkan soo gelin waad ku maasantahay la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba intaan warkankiisa kale aynu ku kulmi doono saaxiibayaal sidaa iyo nabadgelyo.